بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن ونعكسن دمانتين ده وبرنامجنا ويارك ووقتنا وكله أن يسوق بنو تدوات كن برنامجنا وحا يقول مرتيا سلطان محمود أحمد حسن الجماعة كم ده الجماعة شو ودك هنا مقعدين لما كان سوي لو يقانو مقع مجاهد محمود ودادي محمود waxaa ka mid ahaa halgeemayaashii SN imikana waa madaxda dhaqanka ee Soomaaliland waxa uu soo joogay duruufo badan oo kala duwan jawigii wadanka xaaladihii siyaasadeed caburintii xilligii ciidamadii siyaad barre waxyaabihii uu kala kulmay xabsiyo oo u mutaystay maxkamadii geele oo la beegsatay dilal hase ahaatee ilaahay uu ka badbaadiyey waxyaabaha iyo mucjisooyinkii oo kala kulmay intii halgankii wadanka Soomaaliland lagu xoreeyay socday ayaan waxyaabo badan ka weydiin doonaa marka ugu horeysa sultaan ku soo dhaw barnaamijka waan dhawahay Axmed waxaad nooga warantaa sultaan ugu horeyn halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaartay bismillaahi raxmaani raxiim Axmedow oo sidaad sheegtay waan bilaabayaa horta waxa aan ku dhashay meesha la yidhaa dhagax nabi galay ee debisagteeda oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex markii halkaan ku dhashay waa anigoo yar ayaa laga soo qaaday magaalada Hargeysa ayaa la keenay waxbarashadeedii waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa malcaamad ilaa iskuul markii dambe waxa aan galay farsamada gacanta meeshii loo oran jiray MTda halkaasaan makaanimad aan ku bartay kadib waxaan u wareegay xagga wadista baabuur ayaan watay marka inta aan baabuur watay markii dambe gaari yar oo karaasida ayaa oday abtiya Allahu naxariistay Xaydow Faarax ayaa gaari karaasida oo karaasidayaashii tuusideera la oran jiray ayuu xabad yiri abti iskaga bixi hafto dadkaasaan watay waxaan ka shaqayn jiray berbera waana ku shaqaysan jiray xoolahana waan ugu cashuuri jiray halkaan anigoo muddo jooga ayaa waxaa dhacday 1983 bishii koowaad saddexdeedii habeen jimco ah ayaa la jabsaday jeelkii Madheera markaa jeelka Madheera la jabsaday aniga iyo nin shiina faracad loo oran jiray wala tibiyo hawlgalkii lixle ayaa habeenkii soo jeednay subaxii ayaa la sheegay in bandoo la soo rogayo jeelkii Madheerana la jabsaday anagu darajo markaa waxa kaloo la sheegay aabahay oo ku maqnaa Kuwait inuu shalay yimid uu Hargeysa joogo leedna waxun baba igu dhalatay in aan ka soo baxo berbera qoladii bandooyo waxa la soo rogayo oo aan la kulmo aabahay ugu yimaado Hargeysa markii aan ka yara fikiray waxaan idhi berbera waxa iman jirtay maalinta jimcaha diyaarad Somali Airline oo passenger basas ay ka soo qaadi jireen controlkii berberaan ka soo baxay askartii xagee tagaysaa waxaan ku yiri airport kan tagaya airportkii baan imid waxaan ka soo raacay baabuurtii basaskii passenger-ka soo qaadi jiray ee Somali Airline ee Hargeysa keeni jiray waan soo daba galay waxa u dambeeyay ninkii Somali Airline taba haystay oo nin sarkaal ahaa markaas oo korneyla oo gaari dhiiga soo wata ayaa u dambeeya basaska passenger-ka sidaana way horeeyaan gaariga u dambeeyay waan iska soo daba galay ninku wuxuu xidhay waa direys ma labisna laakiin dhar carabi ayuu iska xidhayaa sidaan u soo daba soconay waxaanu ka soo bilownay kantaroolada meesha la yiraahdo xabaalatu malo daragodle iyana kantaroolahay Xamaas la Faruuq warka meesha la yiraahdo ilaa Abdaal inta aan soo maray meel walba marka ay joojiyaan
ee ay dhaafaan anna waan istaagayay adna waxaan baan dhahaa Somali Airlines ayaan la socdaa gaadiidkoodaas deedna way soo daynayeen sidaan u soo soconay waxaan soo gaadhay Abdaal waa soo dhaafnay Dacar Buluq kantaroolkeedu waa soo dhaafnay Dhubato aw Barkhadle amar xaasil kantaroolkii Hargeysa oo aad baabuurtii kuwii xaggaa ka yimi iyo kuwii xag Hargeysa ka soo baxayayba la wada joojiyay dad badanna ay joogaan ayaan isu soo taagnay markaa sultan maxalay oo kale ayaa la jibiyay xalay oo kale jeelka la jibiyay casarkii gaabdha ayaan isu soo taagnay kantaroolka Hargeysa oo markaa ku yaalay hoteelkii la oran jiray Maroodi Jeex iminkaba ay yihiin labada kaabadood halkaa ay ahaayeen ayaa kantaroolka markaa uu yahay kantaroolkii markuu istaagnay aan anigu weli bahalihii daba taaganahay gaadhigii deegaska sarkaalku wataan aan daba socdo ayaa sarkaalka soo degay dad badan baa meesha joogay markuu degayay maan arkay daaqadeedii uu soo taagay wuxuu ku yiri kan adiga warqadaadii dhaqdhaqaaq meeday dabadeedna waxaan ku yiri Somali Airlines la socdaa wana sarkaalkii watay dabadeedna wuxuu yiri yaa maxaa tiri waxaan ku yiri Somali Airlines la socdaa deedna wuu iga dhaqaaqay wuxuu tagay ninkii kantaroolka haystay markaa warkama haysid inuu isagu wato warkama hayo maana garanayo wuxuu tagay ninkii kantaroolka haystay duub astaha oo aan filayo markaa inuu waxa joogay nin mareexana oo la oran magaciisa maayo laakiin xidigla ah oo duub as ninkii oo socda duub astaha ayaa yimi ninkaas uu sheegay wuxuu sheegay anigu markaa maan maqlahayn ninkii baa yiri ka soo deji gaariga wadada taandhadii ay deganaay ay ciidanka istabta deganaayeen ayuu yiri afka u soo galay gaariga halkii baan soo galiyay furihiina wuxuu keen furaan war maxaa jira annaga ku sheegi doonee waxad yeeshaa xageed ka timi markaasaan ku yiri waxaan ka yimid Berbera markaasuu kamaad iman xageed ka timi waxaan ku yiri Berbera ka yimid miyaad Abdaal ka iman oo aanad ka soo dabagelin gawadhidan Somali Airlines waxaan ku yiri kamaan soo dabagelinaa anigu Berbera ka soo raacay Somali Airlines ana la socday wuxuu yiri gaarigu oo leeyahay furihiina sidii uu iga qaaday wuxuu yiri orod waana galabnimo markaa magaalada soo seexa caawa 7 aroorta bartan kaalay sidii baan yeelay waxa ila socda nin aan saaxiib ahayn oo darawaliintii tagaasida ahaa oo aan Berbera iska soo raacnay oo Umar Cigaal la oran jiray aniga ninkii aan saaxiibka ahayn ninkii oo israacnay waxaan tagnay magaaladii baan galay hoteelkii aabay ku soo degay ayaan u tagnay habeenkii halkii baan seexnay anigu in yar baan ahay wax basiida ayaan moodaya aabay waxaan ku yiri kantaroolkana la iga dhigay gaarigiyo aroortii yiraahdeen waan ku soo siinay aroortan ka soo baxay waan ka soo baxaysanaya subaxii sidii baan ku soo qalhanay markaan soo quraacnay 7diiba waxaan nimid kantaroolkii aniyo Umar Cigaalka saaxiibka ahaa oo socday isla markii aan nimidba wuxuu yiri furiigu ii dhiibay 3 askarina oo duub asana way saaray oo ariya inankii wuxuu yiri soco ina mari wariya ay yiraahdeen xageen tagana annaga ku sheegina halkan ku nidhaa mar ayuun bad marasa way baan magaalada ay dhex mariyeen wadada weyn magaalada ayaanu maray tiyaatarka hormari jirtay toos baan u soconay ilaa shacabka halkii gobolka la oran jiray markaan u khalaabnay wadadii haddana Hargeysa kilaab ku talaabi jirtay ayay mariyeen waan dhaafnay haddana halkii biibsiga agteeda ayay iga duween adigu sida ay wadeen geedkii Birjeex ayay geliyeen kadinka Birjeex kantaroolka dibadda ma aha ka gudaha dhigta laga hooso ah halka markaan marna ayaan ogaaday halka in la gelinayo ayaan joojiyay gaariga markaasaan ku yiri inankan ila socday hay iska dego markaasaan deji waayay markaasaan ku yiri iska deg adigu bal orod waatay wax malaabana ila xirayaa marka isaga wax kiisa kuma soo oogin sidii ayay gudihii u galiyeen gudihii markay u galiyeen halka Birjeex gudihiisa ayay aan ku baarkin garay halkan gaariga waan ku baarkin gareeyay way soo kaxeeyeen xafiis nin korneyl oo duub casi uu haysto ayay soo galiyeen ninkii warqad ay sideen markaasoo kantaroolka loogu soo dhiibay ayaa ninkii ay u dhiibeen korneylka ahaa warqadii baa akhristay waan dul taaganahay markuu
warqadii akhristu dhameeyay ayuu soo haye waryaa xageed ka timi markaasaan ku horiye waxaan ka imid anigu berberadeen taksiilaa aan ahay berberaan ka imid marka waxaan soo raacay nimanka la yidhaahdo Somali Airlines passengerkii warkamaad imanay berbere runta sheeg miyaanad ka soo raacin abdaal ma anu kama soo raacin ma ku may habeen xageed joogtay habeen hore abdaal ma joogtay may adeer waa naloo sheegay inaad joogtay halkaa in magacaaga saddexan sheeg magacayga maxamuud axmed xasan baa leeyahay may magacaaga runta sheeg may waa kaas baan ku wuxuu dibadna waxda yeeshaa ma sheegaysaa wixii aad aragtay ciddii aad geysay abdaal oo run rasmi ma sheegaysaa may waxaan ku anigu cidna abdaal maan geyn cid kalena ma sidin berberaan ka soo baxay waxaan daba socday Somali Airlines ilaa control-ka Hargeysa idna control-ka Hargeysa baa askarta control yiraahdeen ka soo rogo wadada gaariga oo ay taandhada afka geliyeen aroortana kaalay saakana sidin baa la igu ka keenay wuxuu yiri war orda waxay kan runta uu sheegi doonaaye qabti ku rida waxaan ku warideedna gaariga igu jiray go'aan kala soo baxa ay kala soo baxbuudo askari bay kaxeeyay go'ay baan kala soo baxay gaariga dabato meesha qabta birjeex ee ingiriiska sameeyay ee wareegsanay dusheedana uu koor gaar ku fuulo ayaa la geliyay albaab biray leedahay meesha in gabal dhacay iyo in waa bariyay lama kala ogaado halkiiba albaabka qam ay ugu soo siiyay albaab weyn oo bira meel yaroo le iftiin yar ka baxna ma laha halkii baan deedna maalintii aan subaxii aan deedna gidaarkii raacay oo inaan gacanta ku taataabto bayna cidi ku jirta meesha waxaan ogaaday in kaliya ay meel deedna makhabada ayaan iska fariistay gidaarkan iskaga tirso sida baan iskaga gamayba halkii baan ku jiray maalintii oo dhan habeenkiina waan ku jiray raashin waa la keenay galabtii raashinkii askartii kadika joogtay ee ay yiraahdeen annaga u geynana raashinka ayaa iska cunay subaxii ayaa quraacdii la keenay weelkii cashadii xalay la keenay ay ka cuneen way u dhiibeen quraacdiina way ka qabteen quraacdiina ay maysiin subaxii dabadna aduu ilaa 9 markay tahay ayay iga fureen albaabkii suuli yaro meesha ku dhagan ayay yiraahdeen ku soo qaaday halkii baan ku soo kaajay dabadeedna halkii bay igu celiyeen waa la igu amar xaasil sidii ba habeenkii dambena uu igu yimid subaxii dambe adigu ilaa duhuradii ayaa waxa ii yimid Allah u naxariistee odayadeer ahaa Haybalambad oo markaa gaashan la dhaxa ahaa oo ay abtigaya abahay yiraahdeen bal waan loo diiday bal orod soo eeg ayaa la hadlay askartii wuxuu ku yiri waxaan doonayaa inaan ku xidhan halkan dadna waxay yiraahdeen taliyahan soo weydiinay taliyihii dib astaabay soo weydiinay wuxuu bal si daay markaa qadigiisa dabadeedna albaabkii waa la iga furay odaygii adeerka baan arkay adeer bal warnoo soo ma fiicida adeer dalkan ku jiraayo wuxuu wax lagu haysta garanaayo bal qadadaan ku sideeyay bal hoo qadadan ka cuno bal waa ku ka dadna waxa ku adeer de Google iyo wax baxada ay u keenay weeydi dabadna gaari sibil abu watay gaariga waxa uu saaraa bustayaashan ciidamada ee cascase ciidamada militariga ay isticmaali jireen deedna intuu gaariga ku noqday ayuu ii soo qaaday xabad busta halkii ayaa deedna uu geli la igu celiyay markaan qadadii cunay walkii dabadaan iska soo dhigay dabadeeto markaan ku jiray habeenkii labaad ayaa subaxii waxa la ii keenay saddexdan nin laba waan garanaya magacyadoodii laakiin ninkii saddexaad ma garanayo magaciisa ma garanayo walilaad labadan nin waxa la kala oran jiray Ibrahim Xaaji Axmed oo beer weyn ku lahaa halkaas Shilmaale
oo loo haystay inuu qaaday nimankii jeelka laga jebiyey ee SNM ay ka jebisay markaa maxaabiista ahaa cawl cilmi cabdalle aadan ruush ina maxamed siraad ina berigeeye iyo intii la socotay dhammaantood ninkii qaaday harasheekh agteeda intay beerta ugu tegeen harasheekh agteeda ay geeyeen ninkan labaadna waxaa la odhan jiray koosaar buurta dhexdeeda markay marayeen ay ka soo baxeen madheera ayuu buurta markay xalay oo kala jebiyeen maalinimadkii ay ugu tegeen buurta dhexdeeda deedna halkaasoo ari ugu qalay odayaasha iyo marxuumkii lixle iyo dhammaantood markaa waxaa la socday nin ay sheeshii ka tirsanaa oo dadka reer koonfurka ah ee gudhuuda ahaa ninkaas markay jeelka jebiyeen waxay yidhahdeen nin wanaagsanoo si wanaagsan noogu khidmeeyuu ahaayee ayay ku yidhahdeen mujaahidiintii SNM hadilina deedna waabay kaxeeyeen waabay ka haysteen wuu la tegey halkaa guriga ay buurta ahaa ee uu deganaa ninkaa koosaar la odhan jiray markii ariga uu qalay ee uu raashinka siinayana wuu la joogay ninkaa ay jeesha ahaa ee ay wateen deedna ninkaa wuu ka baxsan doonaa meel ceelay yidhaaheen biyo ka soo dhaami dabeedna halkii buu kaga baxsanay markaa ninkaasaa sheegay koosaarna markaa iyo nin kale oo isna iminka kaan magaciisa ilaabay oo habeenkaa jeelka la jebiyey ayuu galabnimadkii soo galay meesha laydhaa madheera markaa wuxuu yidhi inan aanu walaalanahay oo la yidhi madheeraa lagu qabaa ayaan soo gaadho deedna subaxii markii magaalada la gebagebeeyey madheera ayuunbaa laygu yidhi xaggeed ka timid goormaad soo gashay magaalada markaasaan idhi buu yidhi galabtaan soo gala magaalada cidi ma kaa garanaysaa maya baan idhi buu yidhi dabadeedna anna saasaa laygu soo qabto laygu soo xiray markaa saddexdaa nin bay ahayd saddexdii nin markii ay yimaadeen waan iska nafisay waayo meesha dhabta la yidhaahdo qalbigaa wax ku noqonaya haddaad keligaa tahay goor habeen dumay iyo goor gabaldhacay midnaba ogaan maysid intii ay yimaadeen ayaa day isarki maynee hadalka idinkoon isarkiinbaa hadalkiibaa waad ismaqlaysaan ayaanu ismaqlanaayo intiibaaban de nafisay dabadeedna odayaashaas intay yimaadeen dadka raashin bay noo keenaan odayaashaas iyo annagaba raashinkaasaan iska wada cunnaa subaxiina waynu soo saarano suuliga ayay noo soo ay noo sii daayeen ay yidhahdaan ku soo kaaja marka caagad biyaana way noo keeneenoo caagadda biyaana waanu haysanaa wax jirdila ama ciqaaba intaad halkaa qabti ku jirteen eed saddexda nin ahaydeen iyo intii aad keligay ahayd ka horreysayba meed la kulanteen intii aan keligay ahaa ee aan labada habeenayaan ka soo horreeyey iyaga wax jirdila lamaan kulmin laakiin markii ay ii yimaadeen iyagu ayaa waxaa jirtay in ay odayaasha habeenba mid la saaro dabeedna inta la soo garaaco oo la soo dilo ayaa habeenkaana looma keenee subax inta meel kale la geeyo ayaa subaxa naloo keenaa dabadeedna waraystaan isnaahnaayo isagoo dee xumadaysan deedna qofku markaa hadli maayo wuu iska jiifsadaa habeen saddexdaba oo ha u sii dil xumaadaan laba nin koosaar iyo xaaji ibraahim xaaji axmed ha u sii dil xumaadaani laakiin aniga laba goor oo ay xafiiska i geeyeen oo dee ii hanjabeen mooyaane oo ay yidhaahdeen ka warran waad ogeyd nimankii jeelka jabsadeed sideeyey ka warran oo dee lay geeyey ninkii korneelka ahaa mooyaane aniga wax jirdili igumuu dhicin halkii markaan wii ku wada jiray oo anigu 2 cisho aan ka soo horreeyey iyaguna ay 5 cisho ila joogaan ayaa 4tii habeennimo marka daakiraadda hore ayaa gaari biijiya oo bahalihii saysayga la odhan jiray shiraaqa lahaa ee dushooduna labada faloodhe iska soo horjeeda lahayd ayaa dabada naloo soo geliyey waana la saaray manduub asoo shana ayaa xagga dama naga fadhiistay kuraasidina la fadhiisiyay ayaa laba la isugu kaayay ka tiinadeeyo nala fadhiisiyay labadii falood marka
aniga ina xaaji axmed waa la isku kaaya katiinadeeyey koosaar iyo ninkii kalena waa la isku katiinadeeyo waan iska soo horjeednaa shiraaqii dambana bahalkii waa loo xidhay nimankii shanta duub castahaana falwadhadii bay nala soo fadhiisteen gaadhiguu nala dhaqaaqay meel allaaliyo meeluu noola dhaqaaqay garan mayna waanu asqoonaydeen bahalkii siduu u socday ayaa markuu cadaadle aanu maranno ee dooxa uu sidaa ugu foorarsaday ayay istaageen dabadeedna shiraaqii dambay naga laabeen tuulihii oo subaxii ilaa 8 subaxnimo 9 meelaha ayaa na aragtayoo nagu soo yaacday markaa dee koosaar iyo ina xaaji axmed bay garanayaan allah war xajigii baa saaranoo way noo yimaadeenoo askartaa dee naga celinaysa halkaasay naga sanaan markaasuu yidhi bal jaad noo keena jaadkiisii beerta ayaaba magaalada ka buuxoo yaalla jaadkii bay dhowr xidhmo waaweyn oo kuwii balbalaytiga ahaaya ay gaadhiga noogu soo tuurtuuray ilaa anagu gacmahan ku xidhanee maqaado karee sagxaddii gaadhiga ku soo dhacay dabeedna uu nala dhaqaaqay gaadhigii xerada cadaadley ee ciidanka militarigu lahaa ayaa nala geeyey xeradaa ciidanka waxay ahaayeen hoolal dhaadheer oo ciidanka la tababarayaa ay galaan iyo qaar maqsina ahoo nimanka saraakiisha aan u malaynaya inay geli jireen maqsinadii yaryaraa qaar mid ka mid ah ayaa nala geeyey waxaana lagu wareejiyey nin kabtana oo duub casa magaciisa waxaa la odhan jiray maxamed waan xasuusnahay markaa nin dhallinyaro ana uu ahaa markii nalagu wareejiyey ee nimankii hargeysa naga keenay ay noqonayeen ayuu dabeedna i wareystay xaggee adiga laga soo saan ku anigu tagsiile reebe baracaa baan ahaan jiray haweenkaas warqadii buu eegay soo maxamed mataa maxamed tagsiile deedna wuxuu yidhi waryaadha maxamed anaaba garanayo oo waa tagsiile reebe barow bal dadka ay soo xidhayaan day markaa wax aqoona miyaad isku lahaydeen sultaan wax allaaliyo wax aqoona anigu meel aan ku arkay ma garanayo xitaa qof baabaad istiraahdaa talow halkeed ku aragtad ma sameynaysaa anigu xitaa meel aan ku arkay ma jirin waxaan u arkaya in qof ilaahay ii diray dabeedna wuxuu yidhi maxamed dibadda ha iska fadhiyo askartii gaadhka naga heshay jaadkii uu ka wada reebay odayaashiina wuxuu qolka ku xidha maxamed halkaa iska fadhiyo markaa jaadkaagana qaadahay jaadkiisana ha qaato badhna askartii baa qaadatay isagu jaadkii waxba kama qaadan deedna wuxuu sigaarka ma cabtaa masaa ku idhahaayo wuu tigo wuxuu ii keenay baakir sigaar ah oo beensa halkaygii baan askartii iskala fadhiyey kartoon iyo waxbay ii dhigeen jaadkayga halkii iska cuno dee nimankii reer cadaadleena arkay annaga iyo odayaashii ayaa qadadii noo keenay qadadii baan wada cunnay haddana halkaygii baan iskaga qayay wuxuu yidhi galabta un xareeyo galabnimadkii baa deedna la xareeyey halkii markaan ku jiray ilaa wiig oo ninkaa yare askariga ahaa ee duub castaada kabtanka ah uu kulbay yimaado maxmed uu dibadda ii soo saaro bal waran sigaarkii makaa dhammaaday mise sigaar buu ii keenaa markaan ilaa 7 cisho ku jiray ayaa waxaa dhacday waxaa noo yimid ninkii la odhan jiray Morgan isagoo helicoptertiisi gaani isagoo helicoptertiisi wata gaani weeye maaha Morgan xeraday bahashii soo dhex fadhiisatay guuxeeda waan maqlaynay waxaa markay soo fadhiisanaysay laakiin anigu mabaan maqlayna waan hurtay dabadeedna siduu soo socday waa gaaniyo taliyihii qaybta lixlaatanaad oo dhan haysta oo qaybta lixlaatanaad oo dhan haysta dhar carabi uu xidhan yahay ilaa 4-3 bodyguard oo yaryaroo aan la bisnayn oo dres aan la bisnayn shingeeya xidhan ayaa noo soo galay dabadeedna wuxuu yidhi gaani markuu saa noogu soo galay ayaa dee darajo iyo waxna ma la bisnaa laakiin tuuto wuu xidhan yahay ayaa wuxuu arkay odaygii koosaar ayaa wuxuu xidhnaa garan cad oo Soomaaliya ay ku taalo odaygii buu ku booday maadaa Soomaaliya garankii buu saa ugu qabtay maadaa Soomaaliya dabadda odaygii garankii buu ku jirtaa aniga oo jiifo iska gamacsan aan dee
aan ogeynba ayaa nalladiga dhufta halkaa lugta maxaa kan jiifaan dadna waa kaco kor baan u eego nimankan dabalaabada sita qoryaha iyo ninka la doordaya ayuu baan saa u eego dabadna wuxuu ku jeestin oday koosa maadaa Soomaaliya garankii ku jeexay dabadeedna uu naga baxay markuu naga baxay wax yar kadib ayaa nala kaxeeyey inta albaabkiina laga furay dabadeedna hool yaroo ka mid ah in xerada ciidanka ee Cadaadley ayaa waxa jooga maxkamaddii badbaadada loo oran jiray ee geelaninkii loo oran jiray xukumayay maxkamadda waxa la socda niman guddiya oo ay ka mid ahaayeen xasan jilic ninkii loo oran jiray ay jeesha haysan jiray hargeysa waxa ku jiray nin xeer laaliye ahaa oo imika garanayo halkan hargeysa imika xeer laaliye ka noqday oo oran jiray sanjeex labadaba waan xasuusnahay oo waan garanayaa maxkamaddii odayaashii baa ku horreeyey waxbaa la weydiiyey dabeedna aniga ayaa galay haddana oo noqday kii saddexaad waxay u yidhaahdeen magacaaga soo maaha maxamuud axmed xasan magacaaga sheeg bay ku yidhahdeen mabay odhan markaasaan ku yidhi maxamuud axmed xasan magacaaga sheeg maxamuud axmed xasan afar baa si kadiisa mid waliba magacaaga sheeg maxamuud axmed xasan maxamuud axmed dabeedna waxay yidhahdeen magacaaga maaha maxamuud xariir miyaan lagu odhan waxaan ku yidhi xariir aniga layma yidhaahdo xariir ma taqaanaa baa laygu yidhi maya ma aqaano waxaa laygu yidhi miyaanad lagaa soo qaban meesha la yidhaahdo abdaal markaasaan ku yidhi laygama soo qaban habeenkii jaalka la jebiyey xaggeed joogtay waxaan ku yidhi berberaa maad joogin maxaad beenta u sheegaysaa abdaal miyaad joogin maad joogin cidi waxba ku odhan maysee noo sheeg haddii aad siday odayaashii nimankii jeelka jabsaday oo ay ku soo qasbeenba runta noo sheeg waxaan ku yidhi anugu nimankaa mana garanayo jeel la jebiyeyna ma ogeyn anigu xaaladdaa aan ka soo sheekeeyey imika ayaan uga sheekeeyaan ku yidhi saasaan kaga soo baxay berbera marka xiriirkan ay ku leeyihiin miyaanad ahayn muxuu ahaa miyaad garanaysay xiriir waan garanayey wuxuu ahaa nin tagsiila ah gaarigaygan ay isku kalar yihiin oo buluug ah oo ay isku nooc yihiin oo karaasiida ah oo turus dheera ah ayuu wadan jiray marka allaha u naxariistay mujaahid lixle ayaa ka kaxaysan jiray marka miyaad garanaysaa markii la yidhi waxaan lahaa anu garan maayo marka maxkamaddii intaa markay tiri ayaa la yidhi waxba runta sheegi maaye waxaa yeesha qolamaati bay yidhaahdeen waxaan ku odhi dee qolada soo tin la mamnuucay maxaa miyaydaan ahayn dowlad miyaydaan ah sidii kan ciidanka u eg deedna waxay yidhahdeen warsheeg qoladaada deedna waxaan ku odhi waxaan ahay ciise muuse deedna ciise muuse ayaad ka tahay waanu sheegay deedna waxay yidhahdeen iminka runta sheegi mayside waad sheegi doontaaye war orod kaxeeya qolka dilka geeya waa la kaxeeyey qolka yagii aanu ku wada jiray ayaa la geeyey dabadeedna halkii baanu ku jiray muddo markaanu qiyaastii ilaa 2 weegoo dambe ku jiray ayaa ninkii aan saaxiibka dayla noqday ee duub casta ahaa sidii kabtankii yaraa iigu keenaa marka raashinka naloo keenayo intuu dibadda iyo soo saaro ayaan halkaa deerka dadka ay soo taagan raashinka keenaya ayaan ka soo qaadaa raashinkan keenaa dadkii baanu qaar deys ka wareysanay magaalada ee raashinka keenayay waan isu sheegay dibadna dadkaygii aniga dee abtiga iyo hooyada iyo reerkayga dee meel la geeyay aan garanahayn ayaa dad ehela ayaan ka helay halkii oo sii gudbiyo warkii oo reerkaygii gudbiyo deedna hooyaday baa ay timid hooyaday waxaa ku yidhi hooyay keeneen macawisiyo kabadda casayo waayo kabadihii buurka ahaa laygu soo qabtay iyo safaari madow oo aan xidhnaa intii baan sitaa iyo goyi iyo bustihii hayba ii keenay marka hooyadii imka intaa ay keentay way iska noqotay 2 wiig markaanu qiyaastii ku jiray
ayaa haddana gooraan siri waa ilaa 3 habeenimo ayaa gaadhigii naga soo qaaday Hargeysa oo kale biijiga ah ayaa dabada loo furay dabada naloo geliyay war xageena la geeyay muujisadii baa shiraaqii loogu xiray sidoo u soconayay ayaa buuraha gacan libax afkeeda hoose ku yaala meel ka mid ah markaa ciidankii buuraha ka baadhayay sanamtii jeelka jabsatay ay degan yihiin oo aan isleeyahay markaa taliska qaybta nimankii haystay qaybta ayaa deganoo niman saraakiil oo dee korneyl ay wada joogaan oo taandhooyin ay ka dhisteen buuraha dhexdooda ayaa nala geeyey dabadeedna iyagii baa degay duubcastinna waday dabadeedna nimankii bay la hadleen waa la murmay wax lagu murmaayey anagu ma garanayno dabeedna nimankii waxaanu hadalkaa ka taagtaagbay yaa idin yidhi u geeya maxaa annaga naloogu keena dee waxa la yidhi waxay leeyihiin kuwana qaada oo nimanka halkaa geeyaana la yidhi waxaad yeeshaan orda oo halkan celiya nimankan waxaa geysaan celiya nimankan oo ku celiya meeshii aad ka keenteen waxaa geysaan celiya nimankan oo ku celiya meeshii aad ka keenteen cadaad leebana lagu soo celiyey cadaad leebay haddana dee madaxdii iyo saraakiishii la wada hadlay waxaa la yidhi waxaa ka dejinna gaadhiga dhaadhiciya Mandheera geeya Mandheera ayaa nalagu dhaadhiyo jaratana laga rogay anigana sidii si leeg ayay ii itixaameen gaadhigaygii lambarkiisii baaba xaadiriyeen ma wadatay 30547 karaasida ahaa nimadkiisu blue yahay ahaa magacaaga sheeg maxamuud axmed may magacaaga sheeg maxamuud axmed kii kale magacaaga sheeg maxamuud dabadeedna waxaa la yidhi runta sheego miyaad xariir hayn aan miyihii baan ku idhi miyaanad habeenkii jeelka la jibsaday miyaad joogin abdaal maan joogin anigu nimankaad sidaad keentay abdaal unoo sheeg war anigu cidna maan keenin anigu berberaan ka soo baxay subaxii ilaa 11 markii diyaaradda timid maalintii jimcaha Somali Airlines soo raacay aniga kantaroolka Hargeysa laygu qabtay intaa iyagoo le ninkan qoladaada sheego qoladii baan sheegay waxa la yidhi odayaashaada reer Hargeysa yaad ka garanaysaa waxaan garanayaa adeerkii Cawil Xasan oo Allah u naxariistay markii uu dhintay oo wakaaladda biyaha iyo adeerkii Yuusuf Maxamed Qayre oo isna petrol station haystay ku haystay cajabta sukadeeda petrol station ki yaraa halka ku yaalay marka labadaasaan u sheegay dabadeedna ninkii laba xidiglaah saddex xidiglaah kabtankii yaraa ayuubaa subaxii yimid oo markaasin baa la yidhi waa la qaaday nimankii dabadeedna gaadhi siiblaah oo Land Cruiser ayuu soo qaxaystay waa keligii isagaa gacanta ku wata jaratu ka soo dhaadhacay iyo maxkamaddii waxa ay weydiinayso ayuu maxkamaddii soo galay markaasuu ku yidhi waa dhageysta guddidii maxkamadda waxaan idiin sheegayaa ninkan Maxamed Tagsiile anaa garanaya waa Tagsiile reer Berbera ilmaadeer baanu nahay markaa ninkani nimankan la kiis maaha ninkani kiiska nimankan la kiis maaha ninkan wadadunbaa laga qabtay waa nin Tagsiilaa waa inankaa yar waa aragtaan wax allaaliya wuxuu ka warhayeyna ma jirto aniga saani u garanaya ilmaadeer baanu nahay ninkan qolada kale laga soo dadkii kale la soo ururiyay aan ku daray nimankan ka reeba la kiis maaha aniga ii dhiibay ugu wareejiyay anaa ka masuul dabeedna wuxuu yidhaahdeen waaye kaxeeyo kuwii in cadaad lagu hayay ee la soo ururiyay ku dar keligay buu dadnay soo qaaday jarataan ka soo baxay